السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشر كيني سدحات كورس كيني Essentials of Adobe Illustrator CC. عشر كيني سدحات وحاو كسو بسن يهي User Interface كوليا Adobe Illustrator CC. مر والبا او اد برانيسا software وحا اد وناكسن اد كلا تقانو Interface كيسا ان اد غران كرتو Menu باركا Option باركا Tools كوليا software كا Interface كا Adobe Illustrator CC waxaa ugu horreyn doono qaybtan loo yaqaano menu bar waa barta u sarreyso softwareka menu bar ereyga menu waxaa ula jeednaa Soomaali ahaan waa qaa'imadaas waxaa ku jiro awaamir iyo amaro ay ayadu bixinayso ay taskiya ku qabanayso ayaa ku jiro ama uu qofka markaasi u dirsanayo tusaale ahaan haddii aan furno file menu waxaa kusii dhex jiri doona qaa'imadeedaas submenus ay leedahay file menu submenu uu leeyahay file menu ayaa wuxuu yeelan karaa another submenu kaleetu yeelan karaa mar kasta oo aad furto menu haddii aad aragto qaa'imadaas awaamirta ku jirto haddii aad ku aragto mid ka mid a saddex xagal ama triangle geeskiisa ah macnaheedu waxaa loola jeedaa in qaa'imadaas ay sii leedahay awaamir kaleete oo ay qaadato tusaale ahaan haddii hadda aan imaano effects oo aan tagno 3D waxaan sii arki doonaa optionada kaleete ee 3D marka aan tagno iyo waxyaabaha aan samayn karno extrude key revolve iyo rotate inta koorskan uu socdo waxaad mar kasta iga maqli doontaa add menu hebel tusaale ahaan haddii aan ku tilmaamo oon ku dhaho waxaad aadaa effects menu waxaad kasii tagtaa 3D waxaad kasii tagtaa rotate waxaad samayn doontaa sida hadda hortaada ka muuqato waxaad kali ku dhihi doontaa effect menu waxaad aadi doontaa 3D waxaad tegi doontaa rotate haddii aad rabto inaad ka laabato qaa'imadan kuu furan meel bannaana intaad tagto kiligdhe qaa'imadii way xirmi doontaa intaa markii aan kaga soo gudubno menu barka waxaa inoogu xigi doono title barka waxaa inoogu jira optionna aad u kooban oo aad u xadidan waxaa ugu horeeyo bridge Adobe Bridge ama go to bridge oo ah software ka caawin doono inuu isugu kaa xidho computerkaaga iyo softwareka tusaale ahaan markii aad u baahan tahay inaad soo kiciso sawirro faylal and so on marka bridge waa isku xidhaha softwarekaaga iyo computerkaaga waa sida browse oo kaleete waxaa kaloo isla title barka noogu jiro haddii uu kugu xiran yahay Creative Cloud account oo aan leedahay account live ah inaad markaas raadin karto search garan karto stock resourcegaagii stock imageskaagii and so on sidoo kaleete waxaa noogu xigo arrange documents wax kale ma ahan waa dokumentyadan noo kacsan ee shaashadeena ku kacsan dokumentyadan ayaga ah haddii aan rabno inaan muxuu ahay arrange gareyno oo aan tusaale ahaan oo kaleete afarta shaashadood inaan aragnaa rabnaa waxaan isticmaalaynaa arrange document commandigaas loo yaqaano markaan keli ku dhaano waxaa noo soo baxaya afartii shaashadood martanaan joognaa marka isla title barka waxaa ku jira arrange document noogu soo celi defaultigeennii koowaad waxaa kaloo ku xigo GPU performancegeena hadda waa disabled waaye bal aan isku dayno inaan muxuu ahay enable ka dhigno haddii uu computerkaaga uu yahay computer muxuu ahaa powerful hadduu yahay optionkan wuu kuu shaqeynaa markii aad double click ku dhahdo waxaa kuu soo bixi doona system preferencegan oo kuu sheegi doono in compatible GPU available uu yahay macnaha oo computerkaaga uu yahay more powerful haddii optionkan uusan kuu shaqeyn marka uusan computerkaaga more powerful ahayn macnaheedu ma ahan in softwareka Adobe Illustrator aad ku shaqeysan karin waad ku shaqeysan kartaa weli wuuna kuu shaqeynayaa kaliya waxa kaa maqnaan doona waxa waaye waa GPU performancega waxa uu leeyahay zoom animation uu leeyahay zoom animationka hadda idin tusin doonaa marka aan muxuu ahaa sheego laakiin intaan on ka dhigin aan ku tusiyo horta hadda haddii aan rabno zoom gareyno oo haddaan isticmaalno zoom toolka haddaan isticmaalno aan doonayno documentka inaan zoom gareyno markaan bartaa keli ku dhahno keliya inta selectionka ah noo soo weynaanayso sidaas bilcagsigeeda marka
haddii aan GPU performance-geena on ka dhigano oo on dhahno GPU performance-ga on aan dhahno oo aan okay ku dhufanno hadda waxaan samayn karnaa a little bit oo zoom animation ah tusaale ahaan markaan saa u jiidno wuxuu noqonayaa zoom in markaan saa dhahnana zoom out markaan jiidno zoom in zoom out GPU performance-ga marka waxa waaye kaliya bas waa live animation isuu leeyahay live animation iskaas kaliya kaa maqan laakiin software-ka waa isticmaali kartaa so no problem marka hadduu kaa maqan yahay xitaa waxay leedahay ma jirto hadda off iga dhe uma baahni inaan hadda isticmaalo GPU performance intaa kadib marka aan title barka aan kasoo gudubno waxaan baran doonaa insha allah dhammaan tooliska meeshan noo yaallo tooliska meeshan noo yaallo waa kala kooxo waaye oo sida hadda u jirta waa kala qaybo qaybtan oo kaleete waa qaybtii selectionka ku shaqeynaysa waaye oo shaqadeedu ah selectionka qaybtan ku xigto waa drawingkii qaybtan waa drawingkii waaye marka aad wax draw garaynayso iyo also text toolka ku jiro drawing text tool ku jiro also shape-yada ku jiro oo rectangle ku jiro circle ku jiro qaybtan ku xigto waa color controls waaye waxaa ku jiro mesh toolkii oo kaleete waxaa ku jiro gradient-igi eyedropper-kii ku jiro also blend tool ku jiro isagana oo laba shay markaan isku blend gareynayno oo isku darayno isku milminayno kaleete markaan sameynayno waxaa intaas noogu sii xigo symbol spray-ga caadiga ahayo marka symbol intaa samaysta aad background-kaagii ku daysanayso chartiga ku xigo also waxaa ku xigo navigators waxaa ugu horeeya artboard toolki slice-ka waxaa inta badan aad u isticmaalo dadka sameeyo web design-ka sameeyo ama web layouts-ka sameeya ayaa isticmaalo hand toolki ku jiro zoom-ki oo hadda noo doorna ku jiro intaa kadib waxaa inoogu xigi doono toolkan loo yaqaano fill and stroke wax kale ma ahan fill waa marka shape-ka sidan uu yahay waxaa hadda noo samaysan ama midabka loogu jiro waa fill-kii waaye haddii marka aan stroke garanay saan u fahanno fill stroke marka aan kili ku dhahno wuxuu noqonayaa fill-kii none stroke ayuu midabkii ku shubmayaa haddii aan cagsigeeda sameyno marka fill stroke waxaa laga wadaa fill-ku waa meeshan aan midabka ku shubnay stroke-gana waxa waaye waa shape-keena corner-kiisa in aan ku shubano color-keena insha allah inta aan course ku jirno si fiican aan usii fahmi doonaa si marka kormara ayaan intaas idin tusinaya oo sample marka intaa kasoo gudubno waxaa inoogu xigo command-gan oo isagana la shaqeyn doono weli color kala sii shaqeyn doono oo tusaalahan oo kaleeto waxaa u horeeyo waxaan u baahannahay solid color waa hal midib mise waxaan u baahannahay gradient mise midibba ma u baahnino waxaan u baahannahay inaan doorano none intaa kadib waxaa noogu xigi doono change screen mode-keena screen mode-ka waxa waaye hadda screen mode-ka noo saaran waa normal screen mode oo waxaan heli karnaa toolskeenii iyo also artwork aan ku shaqaysanayna oo wada jiro haddii marka bartaas aan ku dhufanno waxaa noo soo bixi doona normal screen mode oo qaabka hadda anaga noo doorana full screen mode laakiin with menu bar oo laakiin menu barkii uu la socdo iyo also full screen mode kaliya shaashadda kaligeed inay kuusoo muuqato meeshan hadda aad arkaysaan waxay noo sheegaysaa zoom statuska hadda aan taagannahay haddii marka aan rabna wax ka bedelno marka aad furto waxaa arki doontaa zoom optionska markaas aad heli karto 3.13 up to 64,000 ayaan zoom garayn karnaa 64,000 zoom garaysan tahay marka haddii aan doonno waxaan ka dhigan karnaa 100% ama 100% it looks like this sidaasoo kale u muuqan doonta documentigeena hadda aad u yaryahay documenti yar waaye documentigan ku shaqeynayna waa documenti aad u yar also meesha waxaa noogu jira number of artboardska laakiin hadda hal artboard aan ku shaqeynaynaa haddii dhowr artboard aan ku shaqeyn karna meeshaasaan ka controli lahayn intaa kadib waxaan u gudbi doonaa tabski waa document tabska iyagu waxay noo qabtaan marka aan navigation ku sameynayno from one document to another document bartaas ayay ku taxmi doonaan dhammaan documentyada aan markaas noo furan oo aan ka shaqeynayno ee aan haysano rulerskan waxay ku xirnaan doontaa always hadba sida muxuu ahaa ii sheeg workspace-ka aad ku shaqaysanayso inay marka hore on kaaga ahayn in kaleete marka alla qof oo ku saabsan rulerkan iyo sida loo bedelo unitka insha allah cashir kale aan ku qaadan doonaa tabska markaan kasoo gudubnay kadib waxaa meesha noo yaallo oo aan haysanaa panel control
oo iyaguna waxay la shaqeyn doonaan like tooliskii oo kaleete la shaqeyn doonaan laakiin waxaan ka taxakumaynaa layerada iyo waxaan ka taxakumaynaa artibootyada iyo librarigeena iyo and many more always marka panelka meeshan kaaga muuqan doona wuxuu ku xirnaan doonaa hadba workspace-ka aad taagan tahay tusaale ahaan haddii hadda aan tagno workspace ah printing and proving file in la daabaco loo baahan haddaan u sameynayno print proof haddaan u sameynayno ogaanayno midabadiisii ama printigiisii iyo many more aan ogaanayno hadba wuu isbedelayaa marka panelkan wuu isbedelayaa wuxuu ku xirnaan doonaa marka always markaas workspace-ka onta ku ah haddii lacalla in case aad u baahato inaad iska yarayso kaleete waxaa keli ku leedahay barta ayada collapsiga sameynaysaa way yaraanaysaa markaas tabs ku noqon doonaan wayna kuusoo kacayaan haddii markaa u baahato inaad sidii hore aad kusoo ceshato waxaan tegaynaa meesha ayada always markastoo aad doorato workspace dii workspace-kaaga ay wax ka qaldoomaan waxaad dhihi kartaa reset workspace-ka markaas ii dooran haddoo kaleeto waxaa noo dooran typography reset waxaa noo dooran printing and proof noo dooran sorry marka reset printing and proof wuxuu shay walba ku laaban doonaa cdc asalka ayuu ku laaban doonaa marka waxyaabaha meeshaas noo yaallo aan tagna marka horeeto essentialkeena aan aadno ama workspace-keena aan essential ka dhigano essentials noo gey midkan noo sii yaray waxyaabaha hadda essentialka igu jiro waa property-ga iyo layerskan way kala gedsanaan karaan waxyaaba marka adiga aad soo kiciso computerkaaga default setting-ka kuu saaran iyo kan aniga ii saaran wuu kala gedsan yahay laakiin wax badan oo ku saabsan workspace-yada iyo sida loo hagaajiyo iyo sida workspace adiga aad leedahay loo samaysto dhammaan waa wada arki doonaa essential classeskeena waxaa noogu jiro colorkii also waxaa noogu jiro color guardkii swatchkii aa noogu jiro waxaa noogu jiro brusheski waxaa noogu jiro symbolskii also waxaa noogu jiro strogii waxaa noogu jiro gradientigeenii markaan gradient taxakumayno transparency-gaa noogu jiro also appearance-gaa noogu jiro waxaanoo dhan iyo waxay qabtaan insha allah we'll get later insha allah concept fiican macluumaad fiican ka heli doonaa intaa wixii ka dambeeya waxay ila tahay in software-ka workspace-kiisii aad a little bit wax ka fahantay muhiim ma aha inaad maanta wada fahanto haddii marka ay kaa lunto meel magaceedii hadday kaa lunto insha allah videogan for reference waad ku laalaaban kartaa channelku insha allah uu ku jiraa please saaxiibayaal ha ilaawina insha allah inaad channelka aad subscribe dhahdaan because dhiirigelintaas ayaa anigu waxay iiga qiimo badan tahay wax kasta oo value iyo qiimo leh uu qof isiin lahaa aad aa umahadsantiin insha allah channelka subscribe ha la saaro like ha la dhaho share na ha la dhaho insha allah aad aa umahadsantiin cashirkan cashirka